الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد حق ما قال العبد وكلنا له العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد الحمدلة والصلعمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال maanta insha allahu tacaalaa waxaan doonayaa inaan wax ka idhaahdo mowduuc ku saabsan scientific errorska ay scientistigu waqtiyada ka mida aaminsanaayeen. diinteenuna muddo dheer qaabka ay aaminsanaayeen qaab ka gedisan aynuugu sharaxday. waqti kadibna ay qaabkii diinteyna islaamku u sharaxday oo ah dee qur-aankii iyo xadiiskii nebiga caleyhi salaatu wasalaame ay dib dambe ka ogaadeen wax ka mid ah iyo tusaalayaal aan soo qaadan doono insha allahu tacaala, iyo weli wax ka mida waxyaabaha ay diinteenna islaamku ka hadashay oo ilaa hadda dee dadka islaamka mooyaane dadkan kale aanay waxba ka garanayn, cilmigaana aanay weli gaadhin. waayo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila. cilmiga ay dadku hayaan marka loo eego cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala waa wax aada u yar. awalan horta nin sheekha oo ma garanaysaa ayay darajada sheekhuuqada gaadhay ma yihi. culimaduna markay ka hadlayaan dee laba in ma garanaysaa ay qaababka u sharxaan in sheekh qofka loogu magacaabo lisinni da ahaan, iyo in ma garanaysaa ay darajada cilmigee u gaadhay loogu magacaabo. labadaana mid gaadhay ma yihi. markaa haddii sidii culimadu dee wax usoo bandhigi jirtay ama ay wax uga hadli jirtay aanan ma garanaysaay sidii oo kale samaynin, lagu xambaaro waman alqaa macaadiirahu yakuunu cinda kiraami nnaasi macduura. sida ninka casarkii sii afeef dhigtaa ama sii cudurdaar dhigtaa cishaayigii dee ma garanaysaay waa loo cudurdaara. qaladaadka bashar baa loo yahay oo iska daadee nin aan diin islaama haysan oo dee waxyi uu ka duulo iyo meel uu wax ku miisaamaan haysan. ee culimadeennii ma garanaysaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa, iyo ma garanaysaay dadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ahlulcilmiga ku tilmaamay ayaa ma garanaysaay uu qaladaadku ka dhacayay oo dax lala yaabo maa. alamhaal assaa'ira cinda alcarabna waxaa ka mid ahaa likulli saarimin nabwa walikulli jawaadin kabwa walikulli caalimin hafwa. seef kastoo afbadan mar bay afbeesha, faras kastoo dheereeyaana mar buu kufaa, nin kastoo cilmi lehina mararka qaarkood uu simbirixda. bale nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamayey ninka caalimka ah ee cilmiga le darajatul ijtihaadka gaadhay markuu qaldamo inuu ajar helayo. idaa axkama alxaakimu fa asaaba falahu ajraan wa idaa axkama alxaakim fa akhta falahu ajru. dee nin aan muslin ahayna hadalkiisaba iska dah, bale iyaga waxaaba layna amray dee inayn warkooda iska hubin. ilaahay qur-aanka waa ka kule yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba-in fatabayanu. hadduu nin faasiqi war inii keeno iska hubiya warkiisa. famaa baalu nin aan muslim ba ahayn, faasiqa ninka gaalkaa kasii darajo hooseeya. waayo isagu dee beentuna xaaraanka maaha, maba aaminsanaba ilaahay baa ku xisaabinaya. waa inuu adduunyadiisa iyo sharaftiisa u baqu israaun yaan lagu odhan beri waa kii beenaalaha. haddaan mawduuca si wanaagsan ugu gunda dhaco
walaalayaal culumta maadiga ah waayadan dambe unbaa dadka muslimiintu ay magaranaysaa ayaad moodaa inay ka gaabiyeen laakiin awal way baran jireen xad iyo dheef aad iyo aad u badan way ku lahaayeen iminka iyo quruntii dambe oo dhanna ragga gacanta ku haya ayna hagaa waa raggan magaranaysaayay badankoodu aan muslimiinta ahayn bale qaarkood diinba ma haystaan tu islaam iyo tu kiristaan iyo tu kalana marka waxyaabahan ay sheegayaan waxyaabaha dhacaya iyagoo tajribo xitaa ku gaadhay oo dadaalay oo meel gaadhay waa inagan le inu cilmi ka xeel dheeroo fogay uu ku jiro haddaan tusaalayaal soo qaadano waxaa ka mid a meelaha qarnigii 15aad ilaa qarnigii 17aad qurunta waxyaabaha ay raggan saynisyahanadu ama addabaa'iciyiin waa alfaada ay culimada muslimiintu u adeegsan jireen inay aaminsanaayeen in ilmaha laga abuuro dhiigga xaydka ee dumarka kadib haddana ilaa meelaha qarnigaa 17aad waxay aamineen in haddana dee kolba dadaal bay samaynayaanoo kolba waxbay baadhayaan kolba waxbaa ma garanaysaa u iftiimaye in waxay ogaadeen biyaha ninka ay xidhiidh la leeyihiin ama abuuritaanka ilmaha kadibna waxay qaateen fikrad odhanaysa biyaha ninka unbaa ilmuhu ka samaysma haddana muddo kadib ayaa ma garanaysaayey ay ogaadeen biyaha dumarka laftoodu inay xidhiidh la leeyihiin haddana tii kaley u digarogteen oo halkaasay yidhaahdeen maye markii hore xagga ka lahaayeen biyaha ninkunbuu ilmuhu ka abuurmaayo raximka dumarku waa meel uu ku karown waxay yidhaahdeen haddana dumarka ayuu ma garanaysaa ilmuhu ka abuurmaa ragga sidaa aaminsanaa scientistigaana waxaa ka mid ahaa ninka la odhan jiray leonardo da vinci oo italyaani ahaa wuxuuna dhashay 1452 wuxuuna dhintay 1519 waa qarnigii 15aad iyo ninka la odhan jiray Nicholas Hartzar oo isna nin dhaja ayuu ahaa wuxuuna dhashay 1656 wuxuuna dhintay 1725 markaasna waa qarnigii 17aad culimadii muslimiinta ee waqtiyadaa noolaa waayo qaabkan iyo waxaan ay aaminsan yihiin qur-aanka u ka hor imanaya si cad waayo qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahy innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliih waxaanu ka abuurnay insaanka min nudfatin amshaajin candhuuf amshaajin ay mukhtaladin candhuuf ma garanaysaayay ka kooban biyihii ragga iyo kuwii dumarka oo isku dhafan ilaahay mar kale waa kale alam nakhluqkum min maa'in mahiin iyo aayaadka qur-aanka ee la midkaa falyandur ilinsaanu mima khuliqa min maa'in daafiq qur-aanku wuxuu wada tilmaamayaa in qofka laga abuuro biyo oo biyaha manida ee aabbaha iyo gabadha ka imanaya hooyada iyo aabbaha ka imanaya bale nebigu calayhi salaatu wasalaam sida axaadiista qaar ku cad waa kii tilmaamayey xitaa markii la weydiiyey saxaabiga waxaan filaya cabdullahi ibnu salaam inuu ahaa in xitaa ilmuhu cidduu eekaanaya ay ku xidhan tahay kolba labada biyood ka sara mara oo haddii uu aabbaha biyihiisuna sara maraan uu ekaanayo ilmihii aabbaha haddii kalena ay biyaha hooyadu sara maraanna uu hooyada u ekaanayo markaa culimadii quruntii dhexe aad bay arrintaa uga hadli jireen waxaanay caddayn jireen inay qalad tahay in la aamino in ilmuhu ka samaysan yahay xayd ama labada biyood midu walihaada ayaa ibn alxajar alcasqalaani fi sharxi albukhaari kitaabkiisa fatxulbaariga wuxuu leeyahay wasacama kathiiru min ahli الtashriix أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده وإنه إنما يتكون من دم الحيض والحديث الباب تبدل ذلك حليهي وحي شيغيان
raggan culumtan anatomiga iyo waxyaabaha barta ama ka shaqeeya in biyaha ninku aana xidhiidh la lahayn ma garanaysayay ilmaha abuuritaankiisa shay saxa maaha oy leeyihiin ma garanaysaaye inamaa yatakawanu min dami lxayd oo wuxuu ka samaysmaa uu ka kooban yahay boo dhiigga xaydka axaadiis markaa wuxuu sharxayaa sheekhu xadiiskii ahaa ina axadakum yajmacu khalqahu fii badni ummihi 40 yowma baasuu leeyahay axaadiista baabkaa ku timid abuuritaanka ilmuhuna way diideysaa oo waxay diideysaa inuu ilmuhu ka samaysan yahay dhiigga xaydka la idhaa culimada ka hadashay saas oo kale masaa-isha waqtigiisa waxaa ka mid ahaa sheekha la odhan jiray ibnulqayim aljawsi calayhi raxmatullah kitaabkiisa la idhaahdo tuxfatu lmawduud biaxkaami lmawluud wuxuuna leeyahay aljaniinu yukhlaqu min maai rajuli wa maai lmar-a ilmaha waxaa laga abuuraa biyaha ninka iyo kuwa gabadha khilaafan lima yascumu min addabaa'iciyiin annahu inamaa yukhlaqu min maai rajuli waxdah waa markii dambe markaa ay lahaayeen biyaha waxaa laga abuuraa ilmaha waxaa laga abuuraa biyaha ninka wuxuu leeyahay ilmaha ama janiinka waxaa laga abuuraa waa biyaha ragga iyo dumarka ninka iyo gabadha biyahooda raggan dabaa'iciyiinta ama ma garanaysaay iska dhown scientistiga waxyaabahan ay ma garanaysaay siday sheegayaan ay leeyihiin ilmuhu wuxuu ka abuuran yahay biyaha raggoo keliyaana wax saxa maaha masalada iyada haddaynu halkaa ku dhaafno waayo waagii hore saasay rumaysnaayeen iyagu culimadii muslimiinta iyo diinta islaamkuna saasay sheegaysa haddaba qarnigii 18aad iyo wixii ka dambeeyey ayay iyaguna garteen in labada biyood ilmuhu ka samayso oo ilaahay uu ka abuuro raggii saynis yahanadii markaa arrintaa soo bandhigayna waxaa ka mid ahaa ninka la idhaahdo lazzaro spallanzani oo nin talyaani ahaa wuxuuna dhashay isna 1729 wuxuuna dhintay 1799 waa qarnigii 18aad iyo nin kaloo Pierre Joseph van Benden oo nin reer Belgium ahaa raggaasaa markii dambe iyaguna arrintaa garanaysay soo bandhigay marka walaalayaal waxa halkaa inooga cad in qur-aanku marnaba aanu wax qalada aanu lahayn oo markasta cidda la tuhmaya ay tahay basharka waayo ama qur-aankaana si fiican loo tafsiirayn oo sidii saxaabada iyo rasuulka iyo sidii rasmiga ahayd ayaa laga kaxaynaya ama waxa weeyaan cilmi xeel dheer baa ku jiro aan weli la gaadhin waxyaabaha saas oo kale dibka soo caddaaday waxaa ka mid ah fikraddii iyaduna odhan jirtay bini aadamku wuxuu ka soo jeedaa daanyeer ninkii la odhan jiray Charles Darwin uu keenay nin ingiriisaanu ahaa wuxuuna dhashay 1809kii wuxuuna dhintay 1882 diinteena islaamkuna dee waxay caddaynaysaa cidda laga soo jeedaa inay tahay nabiyullaahi aadam daanyeer iyo wax u dhow toona aan laga soo jeedin kullukum banu aadam wa aadamu khuliqa min turaab waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa bale nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamayay in nabiyullaahi aadam calayhi salaam uu ilaahay gacmihiisa ku abuuray makhluuqaadka ilaahay qaarkood uu abuuray qaarna gacmihiisu ku abuuray qaar kun fayakun baa la yidhi makhluuqaadka ilaahay gacmihiisa sharafta le uu ku abuuray buu nebi aadan ka mid yihi bale nebiyul ahlu jannuhu jannada markay gelayaan waa siday diinteennu inoo tilmaamayso jannada waxaa la geli qof walba isagoo sidana lama gelinayo qof walba isagoo caynkan u eeg jannada lama gelinayo nebigu waa kii lahaa
dadka waxaa laga dhigayaa abnaau 33 33 jir. xitaa timahan jirka kasoo bixiyo waxaan o dhan waa laga tirtirayaa. quruxda iyo dhararkana waxaa loo eekaysiinayaa calaa suurati abiihim aadama 60 diraacan fi samaa. nebi aadan waxaa laga dhigayaa 60 dhudhun ayaa qof walba laga dhigaya. xadiis baanu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku lahaa ina allaha khalaqa aadama waduuluhu 60 diraaca falam yasal ilkhalqu yanqusu xata alaan. nebi aadam ilaahay subxaana wa tacaala markuu abuuray dherarkiisu wuxuu ahaa 60 dhudhun. 60 dhudhun de waa wax aada u dheer soo maa. khalqiguna ilaa maanta kamuu suulin inuu mar walba markas dambeysa u sii nusqaamayo. marka halkan ay ka leeyihiin waxbaa tadawuraya mar daanyeer bua uu soo yar karo waxba kama jiraan. fikraddaasina iminka fikrad inqiraaday ama si inqiraadaysay noqotay, sii dabar go-aysa oo iyaga laftoodii marka culumtan d n a da iyo waxaan baadheen ay ka hadlaan in magaranaysa ayaanay macquul ahayn ay ka tagaan. innagana waxaa loo baahan yahay walaalayaal mar walba inaynu waxaynu wax ku miisaamayno ama waxa laynoo sheegayo aynu kitaabka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam u bandhigno. kadib hadduu dadaalkaynu gaari waayo aynu isku dayno inaynu sii dadaalno ilaa aynu wixii ka gaadhayno. waayo iyagoo maanta hogaanka inoo hayo kolba meesha ku banjaraan ama magaranaysaa ku kacaa kufaan baynu inaguna kula banjarayna. haddaan halkaa kasii gudbo waxaan u gudbi lahaa bal wax ka mida culumta ilaa hadda aanay waxba ka garanayn. diinteenna islaamkuna ma garanaysaay bahalkii diinteenna islaamkuna ay ma garanaysaayey wax inooga sheegtay innaga. waxaa ka mida ilmaha markuu dhasho nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inuu qayliyo. qaylada uu qaylinayaana ay tahay shaydaankoo gujinaya. laakiin iyagu qaabkay u sharxaan qaabkaa ka gedisan weeyaan. dee wixii aqoon taas baanay lahayn oo de inaguba dee lamaynu garanayn diintunba inoo sheegtaye waxay ku sharaxaan environmentigii ilmuhu ka soo baxay iyo environmentigan uu yimid baa kala gedisan. markaa ilmuhu si uu cabiro qayl oo dee lama hadli karaya qaylu ku cabiraya. qaarna waxay sheegaan xubnihiisii jirhku de waa kunoo shaqay bilaabaya inay shaqeeyaan sawadnihii iyo sanbabadii iyo dee waxaasaa ku kalifaya inuu ilmihii qayliyo. laakiin waxaan leenahay ma garanaysaayey cilmi ka xeel dheeroo diinteennu inoo sheegtooni gaadhin baa jira oo shaydaanka gujinaya. walihaadaa maryam markay dhalatay iyo nebiyullaahi ciisa markuu dhashay iyagu may ooyin. abi hurayra radia allaahu canhu waa xadiiska warinaya wuxuu leeyahy markuu xadiiskii sheegay ayuu yihi haddaad doonaysaan faqra'uu qowla allahi tacaalaa inii yuciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaani arajiim. hadalkay maryam hooyadeed lahayd ilaahay waxaan kaa magan geliyey inantaydaa falamaa wadacathaa qaalat rabbi inii wadactuhaa unsaa walaysa dakaru kalunsa wa inii samaytuhaa maryama wa inii yuciiduhaa bika wa duriyataha min ashaytaan arajiim baa aayad tahay. maryam baa u bixiyey waxaanan kaa magan geliyey shaydaanka. waxyaabaha kale diinteennu inooga warantay ee weli aanay gaadhin ama aanay soo hadal qaadin waxaa ka mid a iyaguna xilliyada ilaahay waa kan wadamada kolba wadanba xilli ka dhigay. xilli ay ku jiraan oo kale xilli ay roob helaan, xilli ay magaranaysaay sayf ama shitaa kolba noqonayso. cimilada de kala duwanay wadamada diinteena waxay tilmaantay
xilliga shitaaga la idhaa ama winter timeku qabowgan saa'idka ah ee aadka u badani inuu ka imanayo naarta jahanama neefsasho ay neefsatay. summer timekana kulaylka saa'idka ah ee magaalooyinka qaar leeyihiin inuu isaguna ka imanayo naarta jahanama. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa ishtakat innaaru ilaa rabbihaa faqaalat yaa rabbii akala bacdii bacda. naarta dee waa la shidaa, waa la shidaya. nabigu wuxuu tilmaamay in 1000 sano la shidayo caddaatay, haddana 1000 kale la shiday markaasi casaatay, haddana 1000 kale la shido markaasi dukhuli sawdaa bay noqotay. marka kulaylkaa saa'idka ah say u yar nafisto ayaa iyadii baa iscuntay. kadibna ilaahay subxaanahu watacaala bay u ashtakootay. ilaahayna wuxuu u sameeyey buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam laban xilliga nafasan fi shitaa wa nafasan fi sayf bishiddati maa tajiduuna min albardi min samahriiriha wa shiddati maa tajiduuna min alxari min sumuumiha. qabowga daraneed xilliga winterka ama jiilaalkaa dareemaysaana waa neefsigii naarta jahanama ay neefsatay. kulaylka saa'idka ahna waa naartii jahanama neefsasho kalay neefsatay. su-aal culimada iyada la weydiiyo maxaa keena waa saxe in wadan hebel isagoo winter ku jiro wadan kalena uu samar galo oo kulayl saa'id halkaas ka dhaco. halka culimadu aqwaal badan bay ku leeyihiin, taana kama hadlayaanu, laakiin waxaan tilmaamayaa bal si iyo waxay diintu inoo sheegtay waa culumta ilaa hadda aanu biniaadanku gaadhin. qabowgu iyo kulaylkan dee waa runo cadceeda iyo waxyaabo kaloo kulayl sameeya way jiraan, laakiin kan saa'idkee aadka u darani naarta jahanamay tilmaamaysaa inuu ka yimaado. culumtuna aad bay u fara badan tahay. ilaahayna subxaanahu watacaala qofba cilmiga iyo cidba culumta iyo horumarkuna wax imika bilaabmay un maaha adduunku bale marka la eego nusqaanunbuu adduunku sii wadaawn. waaka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya dee rag buu cilmigoodu gaadhay in ilbiriqsi ay kaga soo qaadaan alaab. hal waa ilbiriqsi min qaarad ilaa qaarad, min wadan ilaa wadan. waa ka suuratu namli ma garanaysaa nebi sulaymaan markuu lahaa ayaa gabadhii soo qaadaya carshigeedii wa qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka darfu. mid cilmi la siiyey, ilaahay cilmi buu tilmaamaya. maanta cilmiga bini aadamku halkaa muu gaadhay. waxaan ka wadaa walaalayaal, diinteenna islaamku xuduud bay noo samaysay. qofkuna haddaanu diinta baran waxyaabaha ma garanaysaayey lagu talagalay inuu aamino uun, waxyaabaha qaarkood diinteennu inoo sheegaysaa inaynu saa ku aaminuun baana layna fara oonaynu farfarin baarhbaadhin goortuu ilaahayna gaadhsiiye cilmigeedana aynu aragno. haddii kale waxaa dhacaysa qofku inuu caqiidadu ka xumaato. jahab ibnu safwaan ba waxaa la yidhi waa raggii cilmigan mandiqa iyo falaasafiga iyo waxaan raadin jiray buu ahaa ee dee cilmulkalaamka raadsan jiray, oo dee aan daliilka iyo xadiiska iyo aayadda aan dhegaysan. markaasaa waxaa ku dhacday ragay doodayeen ba waxay ku yidhaahdeen waar ilaahanaad horta maalin walba nooga sheekaysaa halkuu weligaa maad aragta? kaasuu yidhi may. maad maqashay bay ku yidhaahdeen may. maad taabatay may. haddaa ilaahaad sheegaysaa ma jirta nagala tag bay ku yidhahdeen. culimadu markay ka hadlayeen waxay yidhahdeen 40 cishaanu tukanba. markuu 40 cisho tukan waayu maalintii dambe soo baxay yuu yidhi iyagii buu yaadha warkaaleyi buu yidhi. markaasuu ku yidhi waar hawadaa maad aragtaan may. maad taabataan may. dee markaa caqli eg hadduu idhaa qofku caqligaygunbaan wax walba ku isticmaalaya, caqligu mararka qaarkood wuu ku luminaya. qofka bini aadankaana xakamuu baahan yahy wax xakameeyo qabta. inagana ilaahay wuxuu inooga dhigay waa diinta. marka walaalayaal waxyaabaha aynu arkayno iminkana way aad bay usoo badanaya. bale waxaa jirtaba xitaa aayaadkii qur-aanka ahaa
qaab culimadii hore siday u fasiri jireen iyo sidii diintu ahayd in laga gedinayaba oo si kaloo aan shaqiyo shaashayn lagu fasirayo taasina dalaalun bay keenaysa dadka muslimiintii inay diintooda bartaan waxyaabaha aanay aqoonta u lahayna inay ka hadlaanba maaha ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaanad cilmi lahayn ha ka hadlay marka walaali ma doonaya inaan dheereeyo inahaasun baan kusoo koobi lahaa wixii saxa inka yidhi mawduucana waa fa min allah dix qaldan yihiinna waa fa min nafsi wa min ashaytaan سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرغ